kulanti wanaagsan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeennii xog warniyo maanta waa maalmo khamiis ah 13 bisha 8 sanadka 2020 qodobada warkeena koobaad aan yahaynana waxaa kamid ah guddiga farsamo ee arrimaha doorashooyinka ee xisbiyada siyaasadeed ee dalka oo maanta kulan yeelanaya haddaba kulankaasi maxaa looga hadlayaa madaxweynaha maamulka Puntland oo kulan xasaasi la qaatay madaxweynaha dalka Djibouti maamulka Galmudug oo dhaqdhaqaaqay ciidan ka bilaabay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug madaxweynaha Hirshabelle oo xilka qaadis magacaabay sameeyay kulan looga hadlayay arrimaha xaqtirnimada lagu qabtay Muqdisho iyo xiisada u dhaxaysta Turkiga iyo Greece oo cirka isku sii jarartay qodobadaas iyo qodobo kale daawadayaal ku soo dhawaada fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran subscribe saar channelka kambalka riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe mahadsanid aan ku bilaabay guddiga farsamo ee ka baaraandegaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay maanta oo khamiis ah kulan la yeeshaan asxaabta siyaasadda dalka iyo ururada bulshada rayidka si hayaa xilka wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo kamid ah xubnaha dowladda federaalka ku metelaya guddiga ayaa waxa uu sheegay in maanta ay kulan la qaadanayaan asxaabta siyaasadda dalka iyo ururada bulshada rayidka siyaha wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in aysan tagin guddigooda magaalada Dhuusamareeb ay xisbiyada iyo ururada bulshada rayidka ay kala hadli doonaan hanaanka doorashooyinka dalka ka dhici karta iyo talooyin ku aadan doorashada guddiga ka baaraandegida arrimaha doorashooyinka ee kulamada kala duwan ka wada magaalada Muqdisho ayaa waxa aan ku jirin xubnaha ku metelaya maamulada Puntland iyo Jubbaland isla markaana labada maamul ma aysan shaacin sababta ay uga maqan yihiin 15 bishan August oo ku beegan maalinta Sabtida ee soo socota ayaa waxa lagu ballansan yahay in shir u dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa qasriga madaxtooyada ee Djibouti waxa uu kulan kula qaatay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweyne Dani ayaa kala hadlay madaxweyne Geelle xoojinta xiriirka iskaashi ee Puntland iyo Djibouti sida dhinacyada ganacsiga maalgashiga iyo guud ahaan horumarka kulanka ayaa madaxweynaha waxa ku weheliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka gaadiidka Muuse Maxamed Axmed dhinaca Puntland waxa uga qayb galay wasiirka duulista hawada wasiirka ganacsiga la taliyaha madaxweynaha Puntland arrimaha siyaasadda iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada maamulka Puntland markana Galmudug ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa taraawiishta Galmudug oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen deegaano u dhaxeeya degmooyinka Dhuusamareeb iyo Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ciidamadani oo ka baxay magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxa horkacaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid iyo wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi waxaana la sheegay inay ku wajahan yihiin deegaanka Bulacle oo hoostaga degmada Ceelbuur oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan al-shabaab dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka bilowday deegaano ka tirsan maamulka Galmudug ayaa waxa uu ku su'aadayaa xilli shalay deegaano ka tirsan gobolka Mudug ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo garab ka helaya dadka deegaanka Shabeelow iyo dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale waxa maanta xaalad deegaanashaha laga dareemayaa deegaanka Shabeelow oo 25 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug halkaasi oo ay shalay ku dagaalameen dadka deegaanka oo hubka qaatay iyo xubno ka tirsan al-shabaab dagaalkani ka dhacay gobolka Mudug ayaa waxa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen ku dhawaad 10 ruux oo ku jiro macallin dugsi Quraan halka tireentaasi ka badan ay ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan qaybta 12aad ee xoogga dalka oo shalay dagaalka ku biiray ayaa gacanta ku haya deegaanka Shabeelow kuwaas oo xalay ilaa saaka hawlgallo kala duwan ka wada deegaanka iyo deegaanada ku dhow wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo dagaalka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka deegaanka ciidamada xoogga dalka ay khasaare gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug ayaa waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in mar kale dushooda lagu dagaalamo iyagoo qaarkood bilaabay inay deegaanadaasi isaga barakacaan wali xog waran baan nagala socotaan wararka kale inahna waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo xilka qaadis iyo magacaabis sameeyay
wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxaa xilkii looga qaaday wasiirkii wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Hirshabelle Cali Xaaji Cabdulle isagoona mid cusub u magacaabay xilkaasi. sidoo kale wareegtada ka soo baxday madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa waxaa lagu sheegay in markii loo baahday dardargelinta howlaha horyaala wasaaradda in xilka wasiirka beeraha iyo waraabka Hirshabelle loo magacaabay Cabduqaadir Abukar Maxamuud. muddooyinkii dambe ayaa madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare waxa uu xilka ka qaadayay xubno ku tirsan golihiisa wasiirada isagoona xubno cusub magacaabayay. kulan looga hadlayay arrimaha xaqsirnimada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. kulankan oo looga hadlayay ka hortagga fikirka xaqsirka iyo sidii looga wacyigelin lahaa bulshada ayna soo qabanqaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya Ismaan Aadan Dhuugo, wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta Hirshabelle Sheekh Abukar Xasan Cali, wasiir dowlaha awqaafta arrimaha diinta, wakiilo ka socday majmaca culimada diinka, qaar ka mid ah imaamiyada masjidada magaalada Muqdisho iyo culimada diin kale. wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulankan intii uu socday waxa ay ku soo bandhigtay buug ka hadlaya ka hortagidda arrimaha xaqsirnimada. kulankan ayaa waxaa culimada diinka ka hadlay ay soo bandhigeen diinta Islaamka waxa ay ka qabto fikirka xaqsirka ayagoo ku dheeraaday soonaha bandhigay cadeymo la xiriira fikirka xaqsirnimada. ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya Ismaan Aadan Dhuugo oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay doorka muhiimka ah ee looga baahan yahay culimada diinka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii looga hortagi lahaa fikirka xaqsireynta dhalinyarada Soomaaliyeed. ugu dambeynna xiisad u dhaxaysa Turkiga iyo Greece ayaa cirka isku shareertay. xukuumadda Greece ayaa ugu baaqday Turkiga inuu dib ugala baxo markab ka soo amabaxay degada ku taala Turkiga kaasi oo sahan qodis shidaal ku sameyn doona bariga badda Mediterranean. xiisadani u dhaxaysa labada dhinac ayaa marar badan sare u kacday, balse murankan ayaa iminka ku saabsan kaydka gaaska ee badda Ceegaaga waxaana laga cabsi qabaa in xiisadu ay uga sii darto markii xukuumadda Turkigu ay bishii July ay ku dhawaaqday in markab baaritaan shidaal sameeya ay u dirayso jasiiradda Castellorizo. ayaa waxa murankii ka dhashay markii hore xalisay dowladda Jarmalka oo iminka haysa jagada madaxweynaha midowga Yurub, balse iminka markii uu markabka Turkiga oo ay weheliyaan 5 markab oo kale ay halkaasi gaareen ayaa waxa mar kale soo cusboonaaday muranka. guud ahaan intaas ayaan ku saafmeerinaa barnaamijkeennii xog waran iyo maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran, subscribe saar channelka gambaleelkan riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe. mahadsanid.